ma ogtahay LED buluug la'aantiisa in shaashadan ay daawanaysa aysan suurtagal ahaan lahayn. LED buluug ahna wuxuu ahaa ku dhawaad mid aan macquul ahayn in la sameeyo. marka hore si iftiin loo sameeyo waxaa loo baahan yahay in electronada ay soo gudbaan wax loo yaqaan energy gap ayna waayaan energy. Energygaas ay waayayaan ayaa ah waxa noqonaya photon ama iftiin. Energygaas photon ku jirna badnaanshihiisa wuxuu go'aamiyaa kalarka iftiinkaas noqonayo. Energy yar waxaa ka heli kartaa gaduud, energy intaas kasii badan waxaa ka heli kartaa cagaar. buluuga si aad heshan waxaa u baahan tahay energy intaas kasii badan. laakiin buluuga muxuu muhiim u ahaa? waxaa jira waxa loo primary colors ama RGB oo ah gaduud, cagaar iyo buluug oo isku darkooduna uu kasoo baxay midabka caddaanka iyo dhammaan midabada kale. maadaama horaantii dhexdameeyadii la sameeyey LEDyada gaduudka cagaarka waxa kaliya ee maqnaa wuxuu ahaa midka buluuga ah si loo dhammaystiray dhammaan kalarada kale. run ahaantiina saynisyahannada wuxuu ku noqday laf dhuun gashay muddo 32 sano ah. laakiin dhibaatadu maxay ahayd? horta saynisyahannadu markii hore bay ogaayeen in gallium nitride uu yahay walaxda ugu habboon, laakiin in crystal quality sare leh oo si sax u shaqeeya la sameeyo ayaa waxay noqotay caqabada ugu weyn. crystalku wuxuu lahaa caqabado badan oo qabanaya elektroonada, taas oo keentay in energy-gii uu usoo gudbiyo kul ahaan meeshii laga rabay iftiin. ugu dambeyn dhammaadkii sitamaydii badanaa kambaniyadii saynisyahanadii injineeradii ayaa ka quustay samaynta iftiinka midabka buluuga ah ayagoona kala laabtay bajeedadii kuna tilmaamay inaysan ahayn macquul in la sameeyo. laakiin saddexdan saynisyahan ee Jabaaniiska kama quusan, waxayna dadaal dheer ah ku bixiyeen helidda midabkaas. waxayna sidoo kale aqoonsadeen problemkii haystay gallium nitride-ka oo ahayd hydrogen atomkii ku jiray. waxayna sidoo kale xaliyeen dhibaatooyin kale oo badan ayagoona ugu dambeyntii 1993 sameeyey iftiinka buluugii ugu horreeyay waxtar leh, taas oo bedeshay warshadihii iftiinka gebi ahaanba. albaabadan u furay TV-yada casriga, moobeelada, shaashadaha xayeysiimaha iyo xitaa nalalka. waxayna sanadkii 2014 ku guuleystay Nobel Prize in Physics. waxaan rajeynayaa inaad fahmay. haddii aad jeceshahay inaad la saamin xogahan oo kale kaale is oraa.